أحمدك ربي حمدا تليق بجلالتك وعظمتك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحنكور من دون قصة النبي عيسى عليه السلام. نبي عيسى وحو كمid yahay shanta rasuul ee ulul casmiga, waxaanu ahaa nebigii iyo rasuulkii ugu dambeeyey ee reer bani israa'iil. nebi ciise calayhi salaam dhalashadiisu waxay ahayd mid aada u cajsi gelisay dhammaan basharka dunida ku nool. eebba subxaana wa tacaala waxa uu abuuri karaa ruuxa uu doono, waxaanu ka abuuri karaa wixii uu doono. kun fayakuuni maa bayna alkaafi wannuuni, kaaf iyo nuunka inta u dhaxaysa ayuu eebbe subxaana wa tacaala uu ku abuuri karaa wuxuu doono. qadarkiisii waxaa ka mid ahaa in uu abuuray nebi ciise calayhi salaam aabba la-aan. waxaa la faray malakul jibriil in uu ku afuufo ruuxdii ilaahay maryama bintu cimraan. uurka ayay ku qaaday maryama bintu cimraan calayha assalaam, nebi ciise hooyadii. markay dhashay ee umushay wiilkii yaraa ciise calayhi salaam ayay ula timid qoomkeedii iyadoo xambaarsan. waxay dhaheen qoomkeedii, maryaney waxaad la timi shay aada loola yaabo. aabbahaa ma uusan ahayn ruux xun, hooyadaana may ahayn qof la tuhmo, ee xaggaad ka keentay wiilkan aada sidato? maryama bintu cimraan calayha assalaam ayadoo runtii werwer iyo dhibaato ay ka muuqato ayaa waxa uu eebba faray in ay u ishaarto ilmaha yar. waxayna u ishaartay wiilkii yaraa ee ay xambaarsanayd ee ciise calayhi salaam. ciise waa hadlay, ilmihii yaraa waxa uu yidhi, qaala innii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نبي عيسى isagoo aada u yar ayuu wuxuu dhahay, anigu waxaan ahay addoonkii eebbe. eebbahayna waxa uu siiyey kitaabka injiil, waxaanu iga yeelay nebi iyo ruux barakaysan meel kasta oo aan joogo. wuxuuna ii dardaarmay salaada, sakada intaan noolahay. sidoo kale waxuu eebba i faray inaan baari u noqdo hooyaday. igamana uusan yeelin ruux madax adag oo daalima oo dadka dulmiya. nabadgelya korkayga ha ahaato maalintii aan dhashay, maalintii aan dhiman doono, iyo maalinta laysoo saari doono insha allah. nebi ciise calayhi salaam hadalkiisa waxau ku noqday afkala qaad iyo waxay la yaabaan reer banu israa'iil. dhammaantoodna mucjisadaas ayuu eebba tusay subxaana wa tacaala. nebi ciise waa koray, cunug yar buu ahaa, waxaanu ilaahay ku manaystay mucjisooyin fara badan. isagoo aada u yar ayuu wuxuu mucjisooyin tusi jiray caruurtii iyo ubadkii yaryaraa ee la cayaari jiray. wuxuu uga warrami jiray waxay cunayaan, waxay hooyadood u khabaysay, cuntooyinka loo karinayo maanta. markii dambe waxay isku dayeen reer bani israa'iil in wiilkan yar ee nebinimada iyo rasuulka sheeganaya inay khaarijiyaan oo dilaan. markaa maryam bintu cimraan wiilkeedii intay qaadatay ayay ka baxday dhulka barakaysan ee falastiin, gaar ahaan baytulaxam. waxayna u haajireen dhulka masar. muddo kadib ayay maryam iyo wiilkeedii kusoo noqdeen dhulkii barakaysnaa ee falastiin. eebba subxaana wa tacaala waxa uu nebi ciise ku manaystay in uu nebi ciise uu qof dhintay soo noolan karo iidanka eebbe.
qof xanuun qaba ama xanuunada aan dawo lahayn sida xanuunka baraska oo kale inta uu masaxo dabadeedna xanuunkii ka bogsada idanka eebbe. waxaa ka mid ahayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi ciise calayhi salaam waxa uu la kulmay ruux dumar ah oo ka ooynaysa qabri dusheed. nebi ciise waa u tegay calayhi salaam waxaanu weydiiyey sababta ay la ooynayso. waxay tidhi gabadh aan dhalay ayaa ku duugan qabrigan, kamana dul dhaqaaqayo ilaa inta aan arkaayo gabadhaydii iyo inta aan ku dul dhimanayo. nebi ciise calayhi salaam wuxuu yidhi eebba ayaan ku baryi waanad arki gabadhaadii. nebi ciise calayhi salaam eebba waa baryey. idanka eebbana waxauu eebba u sahlay in ay soo kacdo oo soo noolaato gabadhii qabriga ku jirtay. nebi ciise waxau yidhi qum biidn illaah, idanka eebba ku kac. qabrigii waa gilgilmay. markii labaad buu ku celiyey qum biidn illaah, haddana waa gilgilmay markii labaad. markii saddexaad ayuu qabrigii dilaacay, waxaana ka soo baxay ruuxii haweenka ahaa oo timihii caraysteen, timihii caddaadeen. nebi ciise calayhi salaam waxau weydiiyey sababta ay u raagtay. waxayna tidhi markii ugu horreysay ee qabrigu gilgilmay eebba waxa uu faray in jidhkaygii iyo lafahaygii laysu keeno. markii laysu keenayna markii labaad naftii ayaa laygu afuufay. markii saddexaadna qabrigii ayaa dilaacay. dabadeedna waxaan mooday inay saacaddii qiyaamo ay dhacday oo timihii ayaa ciraystay oo caddaaday. gabadhii waxay la hadashay hooyadeed oo ku tidhi hooyo iska samir, amarkii eebba ayaa kugu dhacay, samir baa iminka lagaaga baahan yahay. kadibna waxay nebi ciise ka dalbatay in ay ku noqoto qabrigeedii ayadoon dareemin xanuunka geerida mar labaad. nebi ciise eebba waa baryey, gabadhiina way geeriyootay ayadoon dareemin xanuunkii geerida. sidaan hore usoo sheegnay nebi ciise calayhi salaam waxa uu indhaha u fiiqi jiray dadka indho la-aanta ku dhasha iyo dadka qaba xanuunka baraska. sidoo kale waxa uu samayn jiray dhoobo u suurad eeg sida shimbirtoo kale, kadibna intuu afuufo ayay idanka eebba duulaysay. waxaasoo dhanna waxay haayeen mucjisooyin iyo calaamado iyo astaan lagu aamino rasuulkii eebbe. hase ahaatee reer bani israa'iil way ka dhaga adeegeen, badankoodiina way ka gaaloobeen. reer bani israa'iil way dhibeen nebi ciise iyo hooyadii maryama, laakiin way u samreen dhibtii iyo aflagaadadii ay dhurayeen reer bani israa'iil. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi ciise asxaabtiisii waxaa loogu yeedhaa xawaariyiin ayay ka dalbadeen nebi ciise calayhi salaam inuu eebba ka baryo in samada looga keeno xeedho ay ku jirto cuntooyin. waxayna ku sababeeyeen arrintaa si ay quluubtoodu u xasisho oo ay u ogaadaan in nebi ciise run u sheegayey, sidoo kalena ay uga noqdaan marag iyo markhaati. nebi ciise calayhi salaam wuxuu eebba ka dalbaday xeedhadii isagoo leh eebbow noo soo deji xeedho samada, ka soo deji samada xeedho noo noqoto ciid iyo aayad xaggaaga ka timi, nana arsaaq adigaa ah arsaaqa khayr roone. eebba subxaana wa tacaala waa soo dejiyey xeedhadii ay ku jirto cuntooyin aad u kala duwan oo aan dhulka hore weligeed loogu cunin. markay xeedhadii timid ayaa nebi ciise faray asxaabtiisii iyo xawaaridiisii inay cunaan xeedhadii. waana la wada cunay. waxaana mucjiso kale ahayd in dhammaan dadkii cunay ee ka cabanayay xanuunada, ee ka cabanayay warwarka iyo walbahaarka iyo waxalaaliya waxay ka cabanayeen inuu eebba ka dulqaaday, ay ka ladnaadeen xanuunadii.
reer bani israa'iil markii ay arkeen in nebi ciise calayhi salaam uu awood yeeshay oo saxaabadiisii iyo xawaaridiisii ay badatay way dhagreen waxayna u kaashadeen boqorro ajaanib ah waxayna damceen inay khaarijiyaan nebi ciise calayhi salaam maalmaha ka mid ah nebi ciise calayhi salaam oo la fadhiya 12 ka mid ah xawaaridiisii ayaa boqortooyadii ciidankii soo dirtay iyo reer bani israa'iil oo iskaashanaya ay soo weerareen nebi ciise calayhi salaam iyo xawaaridiisii nebi ciise calayhi salaam wuxuu ka dalbaday mid ka mid ah xawaaridiisii in uu eebba ka yeelo shabihiisa waxaanuu ballan qaaday inuu noqon doono rafiiqiisa jannada kii ugu da-da yaraa xawaaridii markaa la joogtay ayaa ku adkaystay oo doonayay inuu u hibeeyo naftiisa nebi ciise calayhi salaam malakul jibriil ayaa markiiba samada loo furay nebi ciisena calayhi salaam samada ayaa loo qaaday nimankii ciidankii oo reer bani israa'iil oo iskaashanaya waxay soo galeen qolkii waxayna qabteen ninkii u ekaa ama shabihii nebi ciise calayhi salaam wayna salbiyeen u dileen ayagoo mooday in ay dileen nebi ciise laakiin eebba subxaana wa tacaala arrintaa waa ka marakacay oo waxa uu yidhi ma aysan dilin manaysan salbin nebi ciise laakiin eebba ayaa sare u qaaday waanu soo noqon doonaa qiyaamaha intaanu dhicin ka hor waxaanu noqon doonaa ruuxa dila sida uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay dajaalka soo bixi doona aakhiru zamanka ee sheegan doona in uu yahay ilaahay nebi ciise aakhiru zamaanka markuu soo baxo waxa uu wada kulmin doonaa dadka muslimiinta ah sida axaadiis kale ay tilmaamayso waxa uu dili doonaa doofaarka iyo saliibka laftigiisa intaasi waa qisadii nebi ciise oo kooban waan soo koobnay insha allahu tacaala iyadoo faahfaahsanna insha allahu tacaala waan soo diyaarin doonaa inta aynu ku kulmi doonno qisadan mid lamida waxaynu kaga tegi doonaa insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu